السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتي وإذن سلامي. عاوة waxaan samaynayaa wax la yiraahdo electric light. Waa maxay electric light? Halkan waxaa ku jira milix salty baa la yiraahdaa milixan. Marka aniga waxaan ugu badan afka qalalan, carabka ay qalala aad ii qalala. ama waxaan loo yaqaan dehydrationka baa ahaa igu badan. marka waxaan samaynayaa wax la yiraahdo electric light mar dhow baan inoo sharaxayaa waxa ay tahay insha Allah. laakiin waxa waaye sidaan hydrated ku noqdo si aan yacnihii aan jirku ii qalin oo aan qof biyo cabsan macnihii hydrated oo biyo maaragtay aan qallayl haynin oo maaragtay for example haddii qofku bararan yahay ama biyo kastood cabtid aniga biyo badan baan cabaa si maaragtay biyaha jirkayga ku jira waxa la dhaho edema ama water retention. marka waxaa dhacday inaan biyahaas aan cabo haddii aan yacnihii kelyahaaga maaragtay aysan si fiican u shaqaynaynin waxaa dhacda mararka qaarkood inaan kelyahaagu kaadida si fiican u soo saarin waxyaalo oo kale oo markale ka haragdoono laga yaabo inay protein maaragtay ama ku yar yahay ama ku badan yahay. laakiin waxaa dhacaysa hadda haddii kelidaada aysan functioning ama si fiican u shaqaynaynin waxaa dhici karta inaysan maaragtay aysan kaadida sidii la rabay u shaqaynin oo processki kaadidu maraysa aysan shaqaynin. marka electric light kan samaynayo electric line gas aan samaynayo lights gas waxaan soo qaatay saltiska soo milixan oo ah milixa badda. milixan marka milixa badda ah qaab baa jira loo isticmaalay. intaa yar midii yariisa baan soo qaatay yarka aad u yar dhibicdaa yar halkaasaa gelinaya carabkaaga hoostiisaa gelinaya كرب أصبح بكت وهذا يعرف هو استاجرني متصنع مركب مبسطيد مبسطيد ومتصنع ساعة مركب مبسطيد عاد مبسطيد واحد سميسا مركب إذا معطو أيام واحد تصيح سيبت بيها عبيسة يعني هي ملحي أنبسطتي أما عصبدي عرب كاغا هوستي سيد محانق ميشا الله هوست إن محانق الله ما يمسك كل بالديج هذه عرب هوستي سيد جلسوا لي بالدعوة مركا ساس اللي مسد إن يني سنواية waayo cusbadan waxa ku jira minerals badan oo jirkeen u baahan yahay iyadii himileer saltiga marka mar dhan baan mineralskeeda ka helaynaa aad iyo aad ugu baahan yahay jirkeen baa ku jirta maaragtay waana cusbada ka timaada badda waa cusbada inkastay badda hadda ay ku gureen chemical iyo waxaas oo cusbo organic ah kan aan hadda darbaday oo saltiga la dhahay. biyihii waa kuwaana caaga igu jiraan waxaad samaynaysaa marka biyaha ma aad qababax kama siinaysid waad ka banaysaa saasaad u ka banaysaa biyaha had iyo jeer meeshaasay ku ag yaalayaan hadba ama dhalaha kugu jiraan ama caagha kugu jiraan wax kasta ha kugu jiraan biyahaas waad ka banaysaa saasaad u ka banaysaa. marka sidaasaad ku wadaysaa hadda intii rabadaanka lagu jiray oo dhan aad baan isticmaalay maalin kaliya ma aanan haraadin haddaan daayo carabkayga aniga drive noqonaya mideeda kale haddii biyo la'aan jirkeeda ku dhaco jirkeenu qalalo cudurro badan baa ku yimaada marka waxay ku samaynayaan electrolyte-kan sameeyey cusbadan iyo biyaha isku qaatay waxay sahlaysaa in brain maxaan ku dhahaa kidnigayga functioningkeeda ama shaqaynteeda ay fiicnaato oo maaragtay aan maaragtaa waxay caawimaysaa kelidii inay shaqadeeda si fiican u qabsatay ka caawimaysaa oo u sahlaysaa
waxaan ina yar aan taraya sheegi aan rabaa inaan ka hadlo waa maxay electric light-kan muxuu yahay in yar baan ka hadlayaa horta waxa weeyaan jirkeenaa sameeya horta electric light-kan marka waxa weeyaan wuxuu isugu jiraa sodium iyo maaragtay chlorine iyo magnesium iyo calcium iyo potassium buu isugu jiraa waxa waaye waa isu dheelitirka dhacaamada isu dheelitira in jirkeena isu dheelitira waaye wuxuuna uu maaragtay habeeyaa dhiiggeena iyo maaragtay sida maaragtay si fiican u habeeyaa pH-ka kan la dhaho wuxuu qaadaa oo kaleeto korontada jirkeena ku jirta oo electric loo yaqaano signalska korontada maaragteen jirkeena ku jirta buu qaadaa oo uu mataqaanaa wuxuu ka soo qaadaa electrigas murqaha iyo xididadu ka soo qaadaa electric ka soo qaadaa marka waxa waaye way jiraan cuntooyin laga helo maaragtay oo waxaan laga helo marka saan sheegayba waxa weeye waa minerals ama macdan ku jirta jirkeena iyo bodhigeena iyo dhiiggeena waana maaragtay iyagaana maaragtay waa sidii saan sheegay waxa weeye signalka soo qaadaysa waxay kaloo samaysaa oo aad iyo aad electric light-ka u samaysaa oo saameyn ku yeelataa sida uu u shaqaynayo jirkeena u shaqaynayo shaqaynta jirkeena ayay saameyn weyn ku yeelataa sida jirkeena u shaqaynayo siyaalo badan oo kala duwan bay u shaqaysaa waxaana ka mid ah biyaha jirkeena ku jira waxaa ka mid ah acidka ama waxa acidida ah oo jirkeenu leeyahay oo jirkeena ku jira waxa iyo maaragtay dhiiggii iyo neerfaha iyo masalka iyo siday u shaqeeyaan saan soo sheegayba marka waa muhiim in qofku maaragtay uu helo wuxuu kaloo diyaariyaa oo uu regulate gareeyaa ama uu yacnihii uu isu dheelitiraa marqaha iyo xididadu say u shaqeeyaan isu dheelitiraa marka hydrated markaan biyo cabno the body wuxuu noqonayaa balance maxaa uu isu dheelitirmaamayaa balaadka iyo acididiisa iyo maxaan ku dhahaa hadda fiiri biyo haddaan cabin jirku waa ku gubanayaa waa kululaanaysaa adoo dhan waxaad noqonaysaa qof maaragtay aad iyo aad maaragtay mideeda kale wuxuu noo sahlaysaa inay xididadii ama unugyadii dhintay uu dib u soo rebeer gareeyo oo uu dib maaragtay uu soo noqdaan oo xididada maaragtay waayo damage baa gaaray iyo dhaawac haddii aysan helinin maaragtay ay qallayl noqdaan way qallalayaan biyo la'aan hadday ku dhacdo wuu qallalaya qofku waad aragtay wuu dhadaya xataa quruxdii baa ka tegaysa wax kastaa ka tegaayo qofkii oo dhan waa gadaya cudurro badan buu khatar u yahay qofka markii uusan maaragtay haysanin inaf biyo jirkiisa ku jirin marka biyuhu wax badan oo inaga ilaaliyaan baa jirta hadday noqoto xagga xididadii hadday noqoto xagga murqaha hadday noqoto xagga dhiiggii iyo xaggii maaragteen jirka dhanba shaqayntiisa iyo siduu maaragtay uu noogu shaqeeyo marka waxa weeyaan inaan hydrated noqono aan yacnihii aan biyo cabno oo aanu cabno biyahana markaa cabayno sideedaba dadkeennii hore haddaad fiirsatid oo soomaalida ahaa oo safri jiray ama reebaadiyaha ahaa buraashad ama qofku base u yaqaanay biyo ku qaadan jireen waxa waaye biyahaas waa ku safri jireen waa socon jireen ma qabax ma laga siinayo marka waxay samayn jireen qofka dhuntu qoysanayaa maxaan ku dhahaa biyihii waxay la falgalayaan jirkii bay tartiib ula falgalayaan marka qababax siinayna waxa weeyaan jirkii lama falgalayaan marka siibkan ama kabashadan yar ee fiiqsiga ah wuxuu sahlayaa inay jirkii la falgalaan biyihii oo la falgalo buu noo sahlayaa marka intaasaan caawa kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu